xisbiga moodeel oo ah mid bulshadiisa uga warhaya si guud iyo si gaaraba lana qaybsada dhib iyo dheef wixii ay hadba ku sugan yihiin ayaa wuxuu bulshadiisa u hambalyaynayaa munaasabadda bishan barakaysan ee ramadaanta wuxuuna sidii caadada u ahayd ramadaan kastaba ammaanta oo salaasaa 4 bisha maars 2025 kuna beegan maalintii afraad ee bisha ramadaanka wuxuu xaruntiisa dhexe ku qabtay munaasabad loogu qaybinayay qoysaska danyarta ah ee reer Jabuuti adeeg raashin ah oo dhammaystiran kana kooban cuntada noocyadeeda kala duwan xisbigu ma aha mid haysta awood dhaqaale oo buuran mana jirto waxaayada ah oo naas nuujiya balse waa mid halkudhigiisu yahay iskaa wax u qabso waana mid u tafaxaydan had iyo jeerba wax u qabadka bulshadiisa intii karaankiisa adeegdan raashinka ah ee maanta la qaybiyay waa qaybtii koobaad oo loogu talagalay daafurka samafalka xisbigu qaban doono inta lagu guda jiro bishan barakaysan ee ramadaanta waxaana munaasabadaasi goobjoog ka ahaa faahfaahin dheeraadana inaga siin doona mudane xasan oo ka tirsan mas'uuliyiinta xisbiga moodeel waxaanu yiri sida tan بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد إلهي ومن سبحانه وتعالى maanta oo 4 bisha maaris 2025 amba 4 ramadaanka bisha bargasha ramadaanka ku jirno waxaan salaamaynaa bulshada reer Jabuuti waxaan leenahay ramadaan mubaarak baan leenahay halkan waa munaasabad aan u joogno xisbigii moodeel oo saad uga barateenba hadii jeer iskarab taago xilliyada ay bulshada ugu daran tahay gaar ahaan bisha ramadaan iskarab taago marka maanta waxaan u joognay waa qaybtii koobaad raashinkaas aad arkaysaan oo bulshada tawaalaysan gaar ahaan danyarta la isku garab taagayo ayaan u joognaa raashinkan aad arkaysaan wuxuu ka kooban yahay 9 shay waa sokortii iyo bariiskii iyo daqiiqdii timirtii adoo waxyaabihii loogu baahi badnaa bisha ramadaan ee dadku aynan ka noolaan karin ayuu raashinkan ka kooban yahay marka inaga gudooma marka bulshadeena sidaad ogtihiinba caalamka marka la qiimeynayo waxay ku jirtaa bulshooyinka xagga dhaqaalaha ugu hooseeyo dhaqaalayahanku markay qiimeynayaan bulshadeena waxay ku qiimeeyaan qiimaha ugu hooseeyo oo qofku faqriga uu ka hooseeya faqriga dhanba karakteero lagu qiimeeyay marka bulshadeena waxa la intooda u badan 80% ma soo gaadhan darajadii loo dhanay qofku waa faqiir way ka hooseeyaan khadul faqri baa lagu wada jiraa in yar oo tiro yar ayaa ku khadkii qiinada dhaafay taana waxa loogu macneeyaa bulshada had iyo jeer laba arrimood baa loogu macneeyaa waxa la yiraahdaa sidan ilaahay baa qoray ilaahay marka labaadna wadankeenu waa khayraad malaba la yiraahdaa labada arrimoodna wax ka jiraan ma aha marka koobaad waxa leenahay cadaaladda ilaahay kamid ma aha inuu inna ku xukumo faqri inna qina u xukumo cadaaladda ilaahay kamid ma aha marka labaadna ilaahay ma abuurin wadan bila khayraad ah oo meel markuu ilaahay abuuro markuu abuuro dadka uu dhex dhigo maxaan ku dhahay wuxuu ugu tala galaa wixii ay ku noolaan lahaayeen marka waxa sababa had iyo jeer bulshadu inay hooseyso amba ay faqri ku noolaato 3 arrimood amba 4 arrimood baa sababo walaalayaal arinta koobaad waxa weeyaan waa maareyn la'aan xagga dhaqaalaha si guud ahaaneed dhaqaalaha ummadda oo maareyn xumo ay ka timaado arinka labaadi waa moolis xumo qaabkii ummadda loogu kala qaybin lahaa amba saami qaybsiga loogu sameyn lahaa iyo moolis xumo ka timaadaayo sid bursooya jirta had iyo jeer arinka saddexaadi waa corruption aba maxaa ku dhaawaa musuqmaasuq dhaqaale musuqmaasuq markuu yimaadana bulshada in yaroo tireer baa noolaato inta u badanna way baqtidaa arinka u dambeeyana wuxuu ka yimaadaa waa maamul xumo amba siyaasad xumo marka waxaan leenahay xaaladdu mar haday sidaa tahay oo bulshadeenu qaabka u nool yihiin nidaamka isna saayahay waxaan leenahay moodeel hadaan nahay bulshada reer Jabuuti oo isku tashato bisha ramadaan waa bilihii la wada noolaanayay naxariis la isku muujinayay bulshada waxaan leenahay isku tashato ha wada noolaato waxyaabo ilaahay loogu dhawaan karo bisha ramadaan ugu muhiimsan waa qof inaad aftursiisid qof baahan qof agoona qof miskiina inaad bisha ramadaan raashin u geysid oo aftursiisid waa wixii ilaahay quraanka uu kaga warramay laga talaabayay kaabadii جهنم لقى تلابي لجوجل جندا فلقت حمل عقبة وما أدرك من العقبة فك رقبة أو إدعام في يوم دي مسقوي يتيم دا مقربة أو مسكين دا متروي إلهي ودت كاس لقى تلابي قدرت إلهي شيء دت كايو وحلا ترى
ayaa lagaga tallaabayaa. marka waxaad nagu ogaatiin model haddaan nahay har iyo habeenba waxaan guuclo orod aan ugu jirnaa in bulshadeenna aan meesha maanta ay joogto meel ka wanaagsan aan geyno oo nolol carfi wanaagsan iyo dhaqaalo wanaagsan iyo nolol fiican aan horseedno ayaan ku guda jirnaa. bulshadana waxaan leenahay walaalayaal bisha Ramadaan ha la isgarab taago oo dadku ay isku tashadaan ay isku dhibriyaan. jazaakumullahu khayr wa salaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.